halkan waa Muqdisho Soomaaliya oo aad kala socotaan BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos ah uga dhageysanaysaan. maanta oo maalin Talaado ah taariikhda milaadiguna ay ku beegan tahay 24 bisha May ee 2016 taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay 17 bisha Shacbaan 1437 waxaad ku soo dhawaataan warkii saacadlaha. wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxa ay ku soo waramayaan in webiga Jubba uu sameeyay fatahaado badan waxa ayna fatahaadahani saameyn ba'an ku yeelatay beeralayda ku dhaqan gobolkaasi. fatahaadahani uu sameeyay webiga Jubba ayaa sidoo kale waxa ay saameyn ku yeelatay dadweynaha ku dhaqan gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Jilib ayadoo ay guryaha qaar halkaasi ku burbureen. beeralayda ku dhaqan gobolka Jubbada Dhexe ayaa sidoo kale sheegay in beerahoodii uu baaba ku dhacay ayagoona sheegay in ay doonayaan in ay joojiyaan tacbashada beerahoodii ilaa inta ay xaaladda webigaasi ku soo noqonayso sidii caadiga ahayd. maalmo ka hor inta uusan webigani sameeynin fatahaada ayaa waxaa fatahaad sameeyay webiga Shabeelle ayadoona ay halkaasi ku geeriyoodeen dad la sheegay in ay ku noolaayeen gobolkaasi. fatahaada uu sameeyay webiga Jubba ayaan ilaa iyo hadda la soo sheegin in ay ku geeriyoodeen ama ay ku dhaawacmeen dad hase yeeshee ay jiraan dad halkaasi ka barakacay. wararka naga soo gaaraya dalka Syria ayaa sheegaya in xerada ciidanka cirka ay leeyihiin ee ku taala bartamaha wadanka Syria la arkay ayada oo gubanaysa. waxa ay wararku qaar sheegayaan in sawiro iyo muuqaalo laga qaaday satellite ay muujinayaan 4 diyaaro oo kamid ah diyaaradaha gumaatiga u kaca ee laga leeyahay dalka Ruushka iyo gawaari waaweyn la arkayay ayaga oo gubanaya. waxaana ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxyaabaha u sababay in ay gubtaan ayadoona ay jiraan warar sheegaya in gubniinkani uu sababay dab ka dhashay halkaasi. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. Ayatullahi Ahmed Jannati ayaa loo doortay inuu noqdo hogaamiyaha ugu sareeya golaha awoodda dalka Iran. Master Jannati ayaa daadiisii lagu sheegay inay gaadhayso 89 jir waxa uuna kamid yahay xisbiyada mayalka adag ee ka jira wadankaasi asagoo ku guuleystay doorashadii dib uga dhacday bishii Febraayo dalkaasi. dowladda Gariiga ayaa bilowday howlgallo ay ku doonayso in ay ku rarto qaxooti badan kuwaasi oo ku sugan xerada Idomeni ee ku taala meel u dhow xuduuda Macedonian. booliska dalka Gariiga ayaa bilaabay in qaxootiga ku sugan xerada Idomeni ay ku daadgureeyaan gawaari waaweyn waxa ayna u daadgureynayaan xeryo loogu talagalay qaxootiga oo ay ka heli doonaan waxa ay u baahan yihiin. sidoo kale mas'uuliyiinta Gariiga ayaa sheegay in howlgalkani lagu rarayo qaxootiga uu si tartiib ah u socon doono ayagoona sidoo kale sheegay in howlgalkani uu socon doono maalmo badan. xerada Idomeni ayaa ku nooleed 8,000 oo qaxooti ah kuwaasi oo bilooyin badan halkaasi ku noolaa kadib markii ay Macedonia ka diiday in ay u soo gudbaan wadankaasi. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. shalay ayay ahayd maalintii uu bilowday shirweynihii ugu horeeyay ee bini'aadanimada adduunka waxaana halkaasi ka soo qayb galay madaxda wadamada hay-adaha gargaarka iyo kuwo kale. waxa ayna maanta ahayd maalintii labaad ee shirka socday asigoona sidoo kale la soo gabagabeeyay. shirkani ayaa ka soo baxay qodobo badan oo ay isla afgarteen madaxda ka soo qayb gashay waxaana sidoo kale shirka lagu sheegay in 60 milyan oo qof ay dunidu guryo la'aan ku hayso. madaxda ka soo qayb gashay shirkani ayaa sheegtay in ay ku guul dareysteen in ay ilaaliyaan sharciga caalamiga ah
ee ku aadan bini'aadanimada. Madaxda ka hadashay shirkani ayaa ka mid ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, asigoo ku dhiirageliyay caalamka in ay labalaabaan dadaaladoodii ku aadan caawinaada bini'aadanimo. Waxaan idinku dhiiragelinayaa inaad labalaabtaan dadaaladiinii xal muddo dheer ahna aad u heshaan qaxootiga ku silcaya caalamka, si wada jir ahna loo qaybsado mas'uuliyadda, ayuu yiri Ban Ki-moon. Shirkani ayaa sidoo kale ka hadashay madax badan. Maanta ayaana lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee caasimadda waddanka Turkiga. Imaamka Al-Azhar oo lagu magacaabo Sheekh Axmed Ad-Dayib ayaa ay wararku sheegayaan inuu aqbalay casuumaad uu ka helay baadariga Kaatooliga. Wararka ka soo baxaya warkani ayaa sheegaya in kulankani ay uga wada hadleen arrimo quseeya labada dhinac. Sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa sii xumaanayay xiriirka u dhaxeeya Islaamka iyo Kaatooliga kadib markii uu sanadii 2006 aflagaadeeyay baadarigii Benedicti diinta Islaamka. Benedict ayaa diinta Islaamka ku tilmaamay in ay tahay diin xiriir la leh argagixisada, waxayna arintani saameyn weyn ku yeelatay muslimiinta ku dhaqan caalamka. waxaana intaas inoogu dhamaaday warkii saacadlaha oo aad kala socoteen BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. ciduu dhaafana waxa ay dib uga heli kartaa barta aynu ku leenahay internetka oo ah www.bss-somalia.com.